wararkii ugu dambeeyay dagaaladii ka socda Kulbiyo iyo Doolow oo gobolka Gado iyo Jubbada Hoose ka kala tirsan ee u dhaxeeyay ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland ayaa markaan eegaynaa haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biiro kamid noqo saaxiibada nagu xiran dagaalkii Kulbiyo ka socda waa uu istaagay waxaana la warinayaa in magaalada ay la wareegeen ciidamada taabacsan kuwa maamulka Jubbaland oo waraan 5 askari ayaa ku dhintay oo dhamaantoodba ah ilaalada gudoomiyaha degmada Kulbiyo waa gudoomiyaha deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose ee dhinaca dawladda taabacsana iyadoo ciidankii kale ee deegaanka ahaa ee Kulbiyo ku sugnaana ee galeen xirada ciidamada ATMIS ee ka socda wadanka Kenya ee Kulbiyo ku taala dagaalka wuxuu ka dhacay duleedka magaalada waxaana la sheegay inay ku gacan sareeyeen ciidamada maamulka Jubbaland magaaladana si nabad ah hadda qaybo kamid ah u tageen halka qaybo kalena ciidamada ka socda wadanka Kenya ee howlgalka nabad ilaalinta qaybta ka ah ay joogaan iyagoo diiday in gudaha magaalada lagu dagaalamo ciidamadii deegaanka ahaa ee dhinaca dawladda taabacsanaa markoodii hore kamid ah ciidamada Jubbaland ayaa iska dhiibay xirada ciidamada ATMIS ee halkaas ku taala ama xirada ciidamada Kenya ee halkaas ku taala ay ku sugan yihiin xaaladda magaalada waa ay degan tahay wixii hore ku soo kordhana Kulbiyo wararkeena daba ayaa ku eegi doona laakiin markaan gobolka Gado Doolow wali waxa ka socda dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland wararku waxay warinayaan in ciidamada wadanka Itoobiya ka tirsan ay dagaalka qayb ka noqdeen badi magaalada waxa la wareegay ciidamada Jubbaland iyo kuwa Itoobiya oo isgarabsanaya waxaana ciidamada dawladda ay ku sugan yihiin kooban iyadoo wali la maqlay rasaas culus oo ku socota halka ay ciidamadu joogaan ciidan kale oo kuwa Soomaaliya kamid ah ayaa ka baxay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado ayagana wali ma aysan gaarin Doolow waxaana magaalada banaankeeda ka taagan xiisad culus oo waqtigan u dhaxaysa dawladda iyo soo kale ciidamada Itoobiya oo Jubbaland la soo saftay dad goobjoogayaal waxay noo xaqiijiyeen in ciidamada Itoobiya ay dad shacab dileen qaar kalena ay dhaawaceen soo kale dadkii shacabka ah ee magaalada in badan oo kamid ay ka barakaceen xiisadina wali waa ay taagan tahay qaybo kamid ah magaaladaasna waxa ku sugan hogaamiye ku xigeenka maamulka Jubbaland waa madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno kamid ah wasiirada maamulkaas oo qayb ka yahay wasiirka amniga Jubbaland dad badan oo shacab ah ayaa si bareer loo dilay qaar kalena waa la dhaawacay waxaana falkaas lagu eedeynayaa ciidamada Itoobiya waa qarannimadii Soomaaliya madax banaanidii dalka iyo sharafkii iyo maamuuskii dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo meel looga dhacay in ciidamo aan sharci ahayn oo Itoobiya ka socda ay ka qayb galaan dagaal u dhaxeeya ciidan iyo dad Soomaaliyeed kadibna dad shacab ay dilaan Itoobiya in muddo ahba waxay Doolow ku soo daadgureynaysa kumanaan ciidamadeeda ah ayada ayaana joogay maalmii la soo dhaafayna magaalada qaybo kamid ah dhaqaaqi ay ka wadeen dawladda Soomaaliya waxa ay diidaneen shirarka iyo abaabulka Doolow ka socda waana sababtii keentay in ciidanka dawladda Soomaaliya ay maanta ku baxaan Doolow halkaasina shaqaaqa ay ka dhacdo waxa jira heshiis dhaxmaray dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya kaas oo ay garwadeen ka ahayd Ankara ama Turkiga heshiiskaas oo muujinayay madax banaanida iyo midnimada dalka Soomaaliya iyo Itoobiya inay ilaalin doonto waxa muuqanaysa Itoobiya inay wali wado falalkii guracnaa ee Soomaaliya ka dhanaha maanta ciidan Soomaaliyeed iyo Itoobiyaan ayaa ku dagaalamaya Doolow dad Soomaaliyeed ayaana lagu dilay lama oga sida ay xaaladdu noqon doonto waliina ma jiro wax warar oo dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya ka soo baxay wixii warar ay ku soo kordha xaaladda Doolow dagaalada socda oo meel adag maraya iyo ciidamadii Itoobiya oo qayb ka ah ciidankii Soomaaliyeed iyo dadka shacabka ah oo lalaanayo waxa idin kugu soo gudbi doonaa wararkeena dambe insha Allah waxaana keenay meeshan dadkan meesha degan dad meesha u dhashay laguna dhalay kuna dhalay waaye ma ahan dad la soo gurbiyay oo meel kale ka yimid oo qabaa'ilad kale ka yimid waa hal qabiil waaye jirjir iyo jahwadaag meeshan kuma yaalo guryo la dumihay meeshan waa goof abeed oo dhaxal tooye ah oo qariirad ahaan dadkan ay u leeyihiin Ilaahay ku markanaystay goofo kalena aan gobolada kale ku lahayn oo degmooyinka kale ku lahayn dukumiintiyo marya habaaba oo kaxshiiqa laga diiday oo dharkeylay laga diiday oo garas baalay laga diiday oo daynil ka soco waay gubadley iyo hurway wax looga soo kuday aniga ma aqaan waxay tahay waa dulmi qabiilaysan oo la isku bahaystay oo lagu soo gurbiyo dad nugul oo masaakiin oo wax beena loo sheegay waxa waay anagu goofkan abeedan deganahay mahan goof waay geedahan waa u jeedin waa meesha taag dheere bur dheere ab isaaq waay dhul dhaxal ka xali waay dhul dhaxal tooyaha oo abka abla leeyahay waay jir iyo jahaana loo kala leeyahay waxa iska qabsada meeshan hurway iyo gubadley dhulkaana dhul abeed waay magaalada yaa ku soo fidaysa bilicdin magaalada dad caqabad ku ah oo meelaha inta taga dirbiyaha roogsada
ومقالة ميشان كسو فديسا دولكو أي كفديسانا قبيلهان إي قريرهان داد كان أولي dadka kale gobolada kale ka yimid deegaanada kale ka yimid nala dhashay meelaha ka bootayhay annaga bootaymayno waxaynaan haysanaa shalay ay ka dacwooday garsooray u dacwoodeen dawladda u dacwoodeen ha ku kalsoodaan cadaaladda ay garsoorka ka waayeen aniga ma garanayo meeshay ka jirihayaan waxa waaye dadka kale waxa caday tuulo laga keenay meelaha kale gurigiina la dumin rabaa qabiil lagu qaadan rabaa xamar annaga xamar maantohan dhiibnay guryaha boondeer iyo wardhiigley aan dhiibnay kamana daba socon abyaalkayna dhiibay ma daba socon meesha waxaan cadan hore u dhiibnay kamana daba socon waana la kala macaamilay dhulkan waxa iskale Soomaaliyaale nagala macaamishay oo goofleydan qof la arkaba soo sharciyaalkii la heshiiyay sharciga seeradiyeesh soo baxa 1964 dhaqan galay lagu leeyahay dhulkan dukumiintigaas annaga aan ogolaasho siinay lagu leeyahay maana ma ahan dukumiinti marya habaaba ee duqaa laga keenay helicopterna lagu cabiro lagu lahaamay waxa waaye dadka waxaan u digaa dirbiyaha roogsaay cadaaladaha rabnaa dhahay shalay ayaga dacwooday cadaaladii ninka shira la leeyahay xigtad wadaagnahay ما هو دقيقة وانا قلنا ولكن يعني سيقولي وشيء ما تذكر أنا كل جلا قال ما عايز كنا عمر قال ما عايز تذكر وصار روشنا قبل أركب قبل يكتب قبل كده إنه واو قار شيرنا ما هو كي إنه واو قار ولكن وأسرد دقنا هاي دبنا قمر دحيل ولكن إنه يو عقبت كلنا قن مقالة لي أكو في ذيسة إلى هالنقوم الناس أنا جا أبكابله كبصور كان وام هسيه هاي أمن جوام هسيه هاي لكن ماشى وحواي ماشي مقالة أكو في ذيسة أو إنه يوم مقدشوا مدحوينا أو كل واقع بالله وكتها ماشى اليوم مقدشدي بالله كتاي إلهنا نقوم الناستي عيدنا لما له دقم حوجي كرتو دربي الروكسي الوقع لما أبكى أبان لنا قريض إلا نبأ أذنا له ليش الصومالي الأمين والكومي أو نلك سواس كبوي ورميالي نادول كينا وقدم مريا هباب إلا وقار وحاكونا شيء نكان أوجيس كل شيء وسواء الغد علي وسواء كل علي ما أهندت سود دقة مالك لقبلك لكي وحواي قال هلا هذا وردم بقى dadka nugul inta la soo gurbiyo lagu milicsahay dawladda in lagu jahwareerihay hal joojiyo qofkii dadka la macaamisha dhulkan iskale lahaana doonta mana ogolaad doono in dadka mas'uuliyiinta deegaankan ku abtirsada in lagu xaqxaqto waxa la maqlay ilka weynaana dulmi Xasan Ali Xasan deegaankan u dhashay dadku ku metela waa mas'uulkayni in la xaqxaqtay dadbiga lagu aflagaadiyo ma aqbalayn mana yeelin gobernatoriyaasha sidoo kale ma yeelin garsoorka in waa ku kalsoona garsoorka waa ku kalsoonahay wuxuu naga qaadana waa naga qaaday dawladana waxayna warsato oo dan guud diyaaran u lanahay diraq laakiin waa diidnay diraq ma yeelayna warka intaasoo ku egyahay waa ahab galaashad islaamnimo ma taal andala ka joojiyo in dhulkayna la arqaladeeyo caqabad lagu noqdo